عبد القاسم محلو ديبي عبد القاسم إنه صومالي مدحوينا كنقض أو دبعتها كساره محلو ديبي وحبلو مديني مدحوينا عبد الله يوسف محلو ديبي وحبلو مديني إذا إثيوبيانا واسوك حيان فيلا صوماليا واكينين لكن مركي أي فيلا صوماليا كينين أيجي مركي وحل قبلها السجن نفتي سي ماشي كوي هانيستين أو أي جليين حد سجوري أرنتاس waxay ku qoran tahay buugiisa halgan iyo hagardaamay ku qoran tahay qofkii rabaa ka fiiriyo madaxweyne cabdiis oo dhahaya saraakiisha Itoobiyaanka oo waliba ku hoosa kabtana ah dhibaatada ay u geysteen filo Soomaaliya laga fiiriyo maxaa loo dhiibay waxba markaba looma dhiibin waa baxay yaa ka dambeeyay waxa Sheekh Shariif ayim Sheekh Shariif markuu imaanay jidka Seenay waa la heesta iskoolka 15 May ay xabad aka ugu soo dhaceys منك ساوح لودي هدو بحي حسن الشيخ انت او كل وريك يعني الشيخ شريف وادال وغيران مقالة ابي جودهان حمر وغيران لبدا كنترول عمل وقتك انكستو جودها ددك اللي دلاي لنا بعداي ما نينكا ساد دول لودي فرماجة انت ولو وريك وحبل لو بدي فرماجة وحبل لو بدي حسن اي انت فرماجة هاي ودي نين قرن لو ديبي مجرى انت اصبح ديريا قرشي إثيوبيا oo hore u soo sheegay oo dhaxalkii gumeysiga oo lagu kala qiiminayna waa socda oo hargeysa gacan ku haysa oo mataqaana garow gacan ku haysa oo kismaayo gacan ku haysa oo baydhabo gacan ku haysa oo degan hadda yani hadda ma degan laakiin beledweyne iyo dhuusamareeb markay timaada marka intay nimankan madaxda maxaa loo dhiibay waxba looma dhiibin marka arrinka qaldan wuxuu yahay marka baashu marka waxay ka qaldantaa marka quraanka alif ka halaaba albaqara kama toos aaska ay ka qaldantaa waxa la rabaa marka haddii aan anigu ma dhahayo koox inta timaado dadka qaadkaada ma dhahayo laakiin Soomaalidu waxay u baahan tahay shirweyne qaran oo aan ajnabi shaqo ku lahayn oo gudaha Soomaaliya lagu qabto oo arinta Soomaaliya lagu la faruugo oo arinta Soomaaliyeed si dhab ah xal ugu raadiyo wa ilaa hadii kale sida hadda ay tahay waliga dowladda qomayso dadka hadda waxay leeyihiin maya waa in la qabto doorasho waa la qabana laakiin wax ka soo baxaya male labada kuma doorasho la qabtay Cabdiqaasim lagu doortay 2004 la qabtay waxa lagu doortay Cabdullaahi Yuusuf 2009 la qabtay Sheekh Shariif lagu doortay 2012 la doortay Xasan Sheekh lagu doortay 2017 la qabtay Farmaajo lagu doortay 2022 la qabtay Xasan Sheekh lagu doortay wax dawladnimad ah oo mid aan hiigsanayna ah oo ah mataqaana qaran Soomaaliyeed oo taabagal ahna ma keenin why because waxa qaldan formalada lagu dhisaayo dawladnimada qaldan in lagu soo celceliyo isla khaladaadki haddii la arkay oo tii Cabdiqaasim ay shaqay weysay waxa la rabaa in la dhowr taasi wixii ay ku shaqay weysaa jira formalada aan lama bedel Cabdiqaasim Cabdullaahi Yuusuf maali cadow ka dhaqaaqay waxa la keenay Sheekh Shariif waxba qaldan lama dhihi Xasan Sheekh waxba qaldan lama dhihi Farmaajo waxba qaldan lama dhihi Xasan Sheekh waxba qaldan qof dhahay ma jiro same product ay noqonaysaa وإن لقيت فكر all the 25 years later maxaa noo qabsoon that's the point وما سنت على مدن هيردا gacantu taagantaan ku soo gabeynana Yaasiin ku wareejinaa Yaasiin ku waxaan si gacantu taagantaa heerad noona soo gabeeyo waqti waa naga dhamaaday aad ma santa radio professor waa ku soo diray linkiga korna waa soo saaray waa resolution 442 wuxuu soo baxay 2 December 1950 toban sano ka hor wuxuuna follow up u ahaa reportkii 11 January 1949 guddigii kormeerka ahaa maxaa la yiraahdaa inaan gaarno dawladnimada 60 ay maaragtay adabtigareeyay marka wuxuu qoran yahay in Somaliland ay noqon doonto Republic of Somalia korna waan soo saaray arrinta professor bal waqti badan gali raadina maxaa la yiraahdaa maraaxiishi ka horeysay especially
booqashadan ruushka maraykanka ingiriiska kormeerka ay ku imanayaan muqdisho oo SYL iyo dadka Soomaaliyeed isugu soo bixi doonaan kadibna uu resolution-kan ka dhalan doono in Somaliland oo loola jeedo guud ahaan dhulkii Soomaaliyeed ee gumaystuhu uu kala qoqobay oo ay ku jirtay British Somaliland oo halkii French Somaliland British Somaliland Italian Somaliland oo asal ahaanba ka timi ardu Soomaal oo qarniyo aad u fara badan ay carabtu inoo taqaanay marka meeshan Ingiriisku uu doonayay in 26 June laga weeciyo geed socodkii hore oo ay dadka Soomaaliyeed diideen waqooyi iyo koonfurba ay diideen marka arrintan baxsi ka sameeya insha Allah bal aad u dhaxgal qoraalo badan in laga diyaariyo ama idaacadaha waa meesha kaliya oo ilaa maanta aanan arag hal article oo ka qoran marka laga reebo in yar oo kooban oo ardayda dhexdeeda iyo hal doodo jaamacaddan soo aska dhacday iyo Oxford Forum ko hal mar aan la islamation gareeyay laakiin aan wax badan laga qoran I think hal article kaliya ba inuu hadii la sage gareeyo meel walba available ka yahay kaasna uu ahaa kii soo as dhalinyaradu ay ku diyaarisay oo aan qoraynay June 26 23 marka bal arrinta xoog gal insha Allah khayr barako ku socdo aada uma zanta mistahirad gabadhii barnaamijka soo gaarnay barnaamijkan mid waxa martino ahaa professor Xasan dhamaan inta ka qayb qaatay aad u mahadsantiin insha Allah sabti soo socota ayaa barnaamij waxaan kala sameyn doonaa duwal idmo aadan ka maadaan waqtiga qaaliga mahadsanidin tamaam mahadsanidin adinkana aada u mahadsantiin